waxay isku dayayeen inay dhaawac gaarsiiyaan mid ka mid ah ragga ugu sarreeya xukuumadda Burkina Faso. Waa burcad dhexda u xiratay inay dhacaan dadka, balse maalin maalmaha ka mid ah waxa ay ku hungoobayaan qofkii soo afjari lahaa sheekadooda. Maxaa dhacay? Sheekada ayaad ku ogaan doontaa daawada ee nagu soo biir oo ku sali nabiga haddii aad nagu cusub tahayna channelka subscribe dheh. Madaxweyne Ibrahim Traoré subaxaani waxa uu fadhiyaa xafiiskiisa isaga oo eegaya faylal rasaysan oo dowladda khuseeya, kulamada tirabeelka ah iyo culeysyada qaranka. Indhihiisa waxaa madaxweynaha ka muuqday daal badan, laakiin waxa uu si u dareemayay walaac maadaama maalmahaasi ay soo wajahayeen arrimo badan isla markaana uu ka badbaaday isku daya dil. Mid ka mid ah shaqaalaha sirdoonka ayaa soo gelaya xafiiska madaxweynaha, waxa uuna madaxweynaha siinayaa warbixin ka timiday tuulo ka mid ah gobollada dalka, isagoo cod hoose ugu sheegaya in dadka tuuladaasi ay qabaan dhibaatooyin badan, isla markaana ay maalmahani cabasho ka yihiin burcad dhacaysa ceelbiyoodka tuulada, kaasi oo ahaa dan guud oo dadku ay u sinaayeen. Waxa uuna madaxweynaha u sheegay in burcadani ay dadka ka qaadayaan lacago baad ah oo dheeraad ah, kuwaasi oo uga iibinayaan biyaha dadka shacabka ah ee ku nool tuulada. Madaxweyne Ibrahim Traoré markii uu maqlay warbixintaasi waxa uu ka istaagay fadhiga, waxa uuna u carooday si weyn, waxa uuna amar ku bixiyay in loogu yeero wasiirka kheyraadka biyaha ee dalka. Waxaana saacad kadib xafiiska madaxweynaha soo gaaray wasiirkii oo la yaaban kulanka degdega ah ee madaxweynuhu uu ka dalbaday. Waxa uuna markiiba la fariistay madaxweynaha. Ibrahim Traoré ayaa weydiiyay wasiirka inuu xog ka siiyo tuulada Kombay oo ay ka jiraan xaalado adag. Wasiirkii ayaa sheegay in maalmahan ay maqlayeen isla markaana ay soo gaarayeen xogo, laakiin aysan xaqiijin karin. Waxa uuna sheegay inay ku hayaan dabagal iyo baaritaan. Gudoomiyaha tuuladaasi oo sheegay inuu la xiriiray, waxa uu sheegay inuusan wax xog ah ka haynin arrinta ka socota tuulada. Xagaag, madaxweyne Traoré ayaa u sheegay in tuuladaasi ay mar dhow ku tegayaan kormeer, isla markaana uu wasiirku diyaar garoobo iyadoo aan loo sheegin waqti cayiman. Wasiirkii oo la yaaban kulanka degdega ah iyo safarka degdega ah ee madaxweynuhu ugu sheegay ayaa hadalkii ka gudoomay madaxweynaha. Maalin kadib waxaa tuuladii ka soo yeeray war kale oo la yaabkiisa leh, waxaana la sheegay in gabar yari ay ku dhimatay tuulada haraadka iyo dhibaatooyinka ka jira darteed. Waxaa la sheegay in gabadhu ay xanuunsaneed, isla markaana ay weysay daryeel, haraad badanina uu ka jiray tuulada, sidaas darteed ay nolosheeda galaafatay dhibaatooyinka ba'an ee ka socda tuulada. Waxa uuna madaxweyne Traoré amray in arrintani lagu sameeyo baaritaan dheeraad ah si loo xaqiijiyo sida ay wax u jiraan iyo in ay jiraan dad kale oo la dhiban arrintan oo ku nool tuuladaasi. Waxa uu madaxweynuhu isla markiiba iska hormariyay wafdi ka kooban saraakiil, wasiirro iyo ciidan si arrintani loo xaqiijiyo, isla markaana baaritaan loogu sameeyo. Markii ay dadkii uu u diray madaxweynuhu ay booqdeen tuuladii, waxa ay la kulmeen wax la yaab leh: nolol adag, biyo la'aan, iyo rag burcad ah oo xirtay ceelbiyoodkii guud ee tuulada. Waxaana baaritaanka lagu ogaaday in gudoomiyaha tuuladaasi uu qayb ka yahay ka ganacsiga biyaha ee ceelbiyoodka tuulada. Markii la weydiiyey, waxa uu sheegay in arrinkaasi uu yahay been abuur, sidoo kalena raggan ay hadda ka war heleen, isla markaana uu doonayay inay ka qaadaan tillaabo. Waxaa loo sheegay inuusan qaadi karin wax tillaabo ah, sidoo kalena wax xog ah uusan bixin karin. Maalintii xigtay ceelbiyoodkii waxaa ka dhacay israsaasayn kooban, iyadoo nin ka mid ah shacabka oo aad u xanaaqay uu isku dayay inuu isdifaaco, sidaas darteedna uu soo qaatay gudin. Waxaana halkaasi ka dhacday israsaasayn kooban, taasi oo uu ku dhintay ninkii shacabka ahaa. Aminta ay dhacayaan umuurahaasi oo dhan, waxaa tuulada ku sugan wafdi ka socda xukuumadda sare, iyada oo halkaasi ay ka wadaan baaritaano dheeraad ah. Waxaana batay shaqaaqadii, iyadoo burcadii sidii ay u wadeen dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka. Maalintii xigtay waxaa tuulada soo gaaray madaxweyne Ibrahim Traoré oo si kadis ah ku soo baxay isagoo aan wax xog ah bixinin. Madaxweynuhu xilliga uu soo gaarayay tuulada waxa uu watay ilaalo kooban balse aad u hubeysan, waxa uuna ku soo degay guri qarsoodi ah oo loogu diyaariyay tuulada. Madaxweynuhu waxa uu maalmahaasi iska qaadanayay dhar caadi ah si aan loo dareemin joogistiisa tuulada. Isla galabtii uu maalintii madaxweynuhu yimid, waxaa la dejiyay qorshihii lagu soo qaban lahaa burcadda iyada oon wax shaqaaqo ah dhicin. Waxaana la isku raacay in wasiirka kheyraadka biyaha uu xirto dhar caadi ah, isla markaana uu isku dhex daro dadka shacabka ah,
sidaas darteedna uu ku tago goobta tuulada ee ceelbiyoodku uu ku yaallo ee shacabka lagu dhibaateynayo. waxaana la isla qaatay arrintii, waxaana sidii sameeyey wasiirka isaga oo xirtay dhar duuga, sidoo kalena raacay gaadiidka shacabku ay isticmaalaan. waxauna horay u sii qaatay caagad maran si uu u galo safka dheer ee lagu gumaado dadka shacabka ah. waxauna tegay halkii uu ku yaalla ceelbiyoodka, kaasi oo safaf dhaadheer ay dadku ugu jiraan iyaga oo bixinayo lacago. wasiirkii isaga oo safkii ugu jiro si caadi ah, markii la soo gaaray kalkiisa waxaa ka horreysay qof haweenay ah, taasi oo lacagtii ay bixin lahayd qayb ay ka dhinneed. waxa uuna ninkii biyaha qaybinayay gabadhii uu ku bilaabay jirdil, isaga oo sheegay in lacagta ay si kas ah uga soo tagtay. wasiirkii ayaa u adkaysan waayey waxa ka socda meesha, isaga oo isku dayay inuu difaaco gabadha, isla markaana uu ka dhiciyo ninka. heer markii dambe ninkii uu gaaray inuu u wacdo kooxda inteeda kale, kuwaasi oo ku sugnaa meel aan sidaasi uga dheerayn. kooxdani waa koox gaar ah oo diyaarsan, kuwaasi oo mid ka mid ahi uu ku hubaysan yahay qoriga AK-47. ninka qoriga wataahi waxa uu kooxda ugu xilsaaran yahay in qofkii laga dareemo shaqaaqa dheeraad ah uu madaxa ka toogan karo. markii ay kooxdii isu yimaadeen, waxaa dhinaca kale ka soo baxay ciidan hubaysan oo ah kuwa madaxtooyada Burkina Faso, kuwaasi oo uu horkacayo hogaamiyaha ruuxiga ah ee Burkina Faso, Kabtan Ibrahim Traore. halkaas ayaana raggii waagu ugu baryay, iyaga oo dhammaantood laga qabtay isla markaana loo taxaabay jeelka. sidoo kale waxaa halkaasi lagu xiray gudoomiyihii tuulada ee dadkiisa hagraday, isaga oo ka ganacsanayay ceelbiyoodka guud ee tuulada. waxa uu madaxweynuhu maalintii xigtay dhagax dhigay mashaariic ay ka mid yihiin xarumo caafimaad, dugsiyada tuulada, isaga oo kabsiiyey beeralayda tuulada si ay u kordhiyaan wax soo saarkooda. waxa uuna madaxweynuhu jeediyey maalintaasi khudbad taariikhi ah, taas oo uu dadka tuulada ku bogaadiyey kartidooda iyo isku duubnidooda iyo sida ay ugu dulqaateen arrimaha soo wajahay iyo dhibaatooyinka. waxauna madaxweynuhu u ballan qaaday in arrintani aysan mar dambe soo laaban doonin, isla markaana ay xukuumaddu si gaar ah ula shaqayn doonto maamulka tuulada. madaxweyne Kabtan Ibrahim Traore ayaana ku yidhi, maanta halkani uma joogo inaan nahay madaxweynihiinna oo keliya, laakiin waxaan halkan u joogaa inaan nahay sidii walaalkiinna oo kale. waxaana arkay dhibkiinna, waxaana la joogaa wakhtigii cadaaladda iyo isbeddelka. mar walbana shacabka ayaa awoodda leh. waxa uu sheegay in Burkina Faso ay leedahay cadow fara badan, taas oo loo baahan yahay in dhammaan shacabku ay helaan isku duubni, taas oo looga samata bixi karo midnimada. sidoo kale waxa uu madaxweynuhu u sheegay oo bulshada ku bogaadiyey in dhammaan ardayda ka baxday dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare ay heli doonaan deeqo waxbarasho oo ah caasimadaha, ilaa qaarkood loo diri doono dalka dibaddiisa. sidoo kale gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay tuulada ayuu ugu baaqay inay la shaqeeyaan dadka shacabka ahi. waxa uuna madaxweynuhu khudbadiisa ku soo afmeeray in dowladdu ay ku jirto dadaallo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo guud ahaanba waddanka. tuuladan oo markii hore ahayd meel rajo la'aan ah, waxay maanta astaan u tahay isbeddelka geesinimo ee uu sameeyey hogaamiyaha da'da yar ee Burkina Faso, Kabtan Ibrahim Traore. arrintani waxa ay farxad gelisay oo la dhacay dadkii ku sugnaa tuulada, iyaga oo marxabayn iyo caleemo qoyan ululaya ku sagootiyey safarkii madaxweynaha Burkina Faso, Kabtan Ibrahim Traore. daawade, haddii aad halkan hal soo gaartay channelka subscribe dheh, isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran. waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa muuqaallo iyo sheekooyin xiiso badan.